sida ay daabaceen dhowr hay-adood oo warbaahin iyo cilmi baaris isugu jira 2009 saamilayda siyaasadda go'aanka iyo jihaynta Kenya waxa ay soo saareen go'aan midaysan oo Kenya ku faragelinayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxa kamid ah in Kenya tababarato hubaysato isla markaana isku duwato dablay Soomaali ah oo xadka Kenya la leedahay Soomaaliya ka bilowda dagaalka wakaaladda taas oo macnaheedu yahay in maleeshiyadaasi gasho dagaal ay wakiil uga tahay ciidanka difaaca Kenya KDF iyada oo aan dagaalkaasi wax saameyn ku Kenya bartilmaameedka koowaad ee dablaydaasi waxa uu ahaa hakinta weerarada dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ay sheegtay Kenya inuu si xun u dhaawacay ganacsiga iyo dhaqaalaha dalxiiska Kenya inkasta oo Kenya u dabaaldegaysay sanadkaas sanad guurada 46 ee madaxbanaanideeda haddana ciidanka Kenya 46 ka sano inuu dhagta ka maqlama ahee lama gelin dagaal ciidanka dawlad kale waxaana suurtagal ah in taasi u horseeday deganaansho mar kalena ay ku tahay Kenya waaya aragnimo la'aan dagaal oo haysata waddan ku yaala bariga Afrika oo ay isku hayeen sooyaalka hogaankiisa muddo dheer xabashida iyo Soomaalidu hayeeshee bariyahaas lacag aad u fara badan oo Washington ugu tala gashay la dagaalanka colka ay u taqaano argagixisada ayaa ku qaaday dawladda Kenya inay ka faa'iideysato sidaas awgeedna waxaa qasab ku noqotay Kenya inay yeelato ciidan adag oo dhulka jooga isla markaana xaqiijin kara ujeedooyinka dagaalka ka dhanka ah colka Amerika haddii ay rabto inay xoolo badan ka hesho mashruuca la dagaalanka argagixisada waxa kale oo Kenya sas iyo qaadan waa ku riday sida Atomela Zanawi ra'iisul wasaarihii Ethiopia oo geeriyooday 2012 uu uga faa'iideystay lacagta la dagaalanka argagixisada ee Amerika uu tala gashay bariga Afrika sidaas oo kalena waxa siyaasadda arrimaha dibadda ee Kenya la anfariirtay sida Ethiopia dhaqaale iyo fulin siyaasadeed uga samaysatay faragelinteedii ciidan ee Soomaaliya ee sanadkii 2006 iyada oo wakiil ka ah Mareykanka qorshaha faragelinta ciidan iyo hurinta dagaalka wakaaladeed ee Kenya waxa ku jiray dadaal ay Kenya ku doonaysay qabsashada iyo samaynta dhul ka mid ah jubbooyinka oo u gaar ah Kenya kaas oo si buuxda u maamulayo ciidanka difaaca Kenya waxa aan rajaynaynaa inaad fahamtay ujeedka Kenya ka leedahay dhulkaas oo ah hirgelinta Buffer-zone waxa loola jeedaa dawlad go'doonsan oo u dhaxaysa laba wadan oo ku jira hardan iyo tartan dhinaca awoodda ah waxaana loo isticmaalaa samaynta dawladdaas si loo dhammeeyo hardanka u dhaxeeya laba awoodood sidii Russia iyo Ingiriisku ay ku sameeyeen Afghanistan xilligii Ingiriisku gumaysanayay dalweynihii India ka hor intii aan Pakistan ka go'in wadanka India wixii ka horeeyay sanadkii 1946 sida ay shaacisay kooxda ka faaloota xasaradaha adduunka International Crisis Group xubno sare oo ka tirsan ciidanka KDF iyo siyaasiyiin uu kamid ahaa wasiirkii difaaca ee Kenya Yusuf Haji ayaa isla gartay hirgelinta siyaasad leh 3 af oo isugu jirta dagaal dana ganacsi iyo in koonfurta webiga Juba laga sameeyo dhul u gaar ah Kenya ama Buffer-zone kaas oo ciidanka KDF u sahlaya inuu helo aag nabdoon ama safe zone si saadka sahayda iyo isgaarsiinta ciidanku u hesho dhul kamid ah Soomaaliya oo ciidanku u adeegsan karo si madax bannaan iyada oo dhammaan howlihiisu yihiin kuwa qarsoodi ah ilaa iyo inta warbaahinta Kenya loogu sheegayo inay u faafiso sida ay dawladdu u rabto oo ay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo difaacu diyaarinayeen sida ay sheegtay ICG si qorshahaasi u hirgalo wasaaradda gaashaandhigga ee Kenya waxa ay go'aansatay in dhaqdhaqaaqa al-shabaab laga riixo dhammaan dhinaca koonfureed ee webiga Juba iyada oo loo riixayo dhinaca waqooyiga webiga Juba oo saraakiisha KDF u arkaysay inuu yahay dhul laga heli karo awood ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab October 2011 laba batalyan ama ciidan ka badan 2000 oo askari oo kamid ah ciidanka difaaca Kenya ayaa ka soo gudbay xadka Soomaaliya la leedahay Kenya isaga oo taageero farsamo iyo mid xoogsiinaya jabhaddii Ras Gamboni oo uu aas-aasay Sheekh Xasan Turki balse uu hogaamiye dagaal ka ahaa Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe tabiyaaqadii 2009 jabhaddaas Ras Gamboni waxa ay la midowday jabhaddii Xisbul Islaam iyada oo ay hogaamiyayaal sare ka noqdeen Sheekh Umar Imam Sheekh Xasan Daahir Aways Sheekh Xasan Turki iyo Sheekh Ahmed Maxamed Islaam ujeedada faragelinta ciidan waxa lagu sheegay in Kenya xakameynayso dambiye afduub iyo dil isugu jira oo ka dhacay gudaha Kenya iyo xadka Soomaaliya iyo Kenya hayeeshee sheegashadaasi Kenya uguma filnayn inay sameeyso faragelin ciidan oo aan si cad loogu sharaxin awoodaha miisaama siyaasadda iyo nabadgelyada gobolka balse dhacda ilayska jaalaha siisay faragelinta military ee Kenya ku sameeynaysa Soomaaliya ayaa dhacday October 2011 rag hubaysan ayaa galay gudaha Kenya waxa ayna dileen nin dalxiis ah oo u dhashay Ingiriiska waxa ayna
afduubteen xaaskii dalxiisaha Ingiriiska haweeney Faransiisa iyo laba shaqaale oo ka shaqaynaya gargaarka kuwaas oo u dhashay Spain inkasta oo falkaasi marmarsiyo macquul ah siiyay faragelin ciidan oo aad u caraysan haddana dhacdadaasi waxa ay walwal badan ku dhalisay dhaqaalaha Kenya ka soo gala dalxiiska iyo guud ahaan nabadgelyada gobolka NFD ee Kenya haysato kaas oo xuduud la leh degmada Lamu si walba oo ay tahaba falkaasi waxa uu sabab suuragal ah u sameeyay faragelinta ciidan ee Kenya ku gashay Soomaaliya sanadkii 2011 iyada oo isu aragtay inay la dib dhacday faragelinteeda arrimaha gudaha Soomaaliya halka Ethiopia ay gacanta kula jirtay muddo dheer ayna uga heshay kaalin siyaasadeed oo gobolka iyo adduunka ah 3 maalin kadib falkaas Kenya waxa ay shaacisay faragelinteeda military ee ay ku sameynayso Soomaaliya waxaana ciidanka KDF isaga oo aan la kulmin dagaal weyn sidii uu qorsheeyay sanada ka hor galay gobolada Jubbooyinka iyada oo dagaalka intiisa badan ay fuliyeen guulna ka gaareen jabhada ay kamid ahayd Raskamboni oo muddo kadib isu rogi doonta udub dhaxaadka awoodda Jubbada hoose iyo salka xukunka Kismaayo bartilmaameedka ugu muhiimsan ee ujeedka faragelinta ciidan ee Kenya oo ahaa sameynta iyo jeexidda habkii lagu dhisi lahaa dawlad go'doonsan oo u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ama buffer zone waxa uu suura galay markii ciidanka KDF oo kaalmo ka helaya jabhada Soomaali ah uu galay gobolada Jubbooyinka isla markaana gacanta ku dhigay dekadda garoonka ama gegida diyaaradaha iyo guud ahaan magaalada Kismaayo maalintaas Kenyaanku waxa ay isku salaameen Sekuya Furaha ama maalin farxadeed maadaama sidii waaye aragga KDF u dajiyay qorshaha uu intiisa badan u hurgalay haddana walaahow badan ayaa ka jiray xilligaas sida ay Kenyaanku u sii joogtayn karaan gacan ku haynta Kismaayo I'm quite happy with the progress because aad ayaan ugu faraxsanahay horumarka marka aan eegno waqtiga aan hawshan ku qabanay oo ahayd hal bil aad ayay u fiican tahay waxaan qabsanay dhul aad iyo aad muhiim u ah waxaan rumaysnahay in maalmaha soo socdana aan halkaas sii joogi doono tallaabada xigta ee hawsheenna waa inaan markan maamulnaa dekedda oo ku taalla qaybta koonfureed ee magaalada iyo garoonka diyaaradaha oo isna ku yaalla qaybta koonfur galbeed ee magaalada marka laga bilaabo halkaas waa inaan si cilmiyeysan u dejinnaa magaalada weliba maalinta ama labada maalin ee soo socota and then from there we will systematically pacify the town within probably the next coming 1 or 2 weeks yeelkeedii waayo aragnimada madaxda jabhadda Raskamboni oo xiriir wada shaqayneed iyo mid aragtiyeed kala dhaxeeyay xoogagii ka dagaalamayay xilliga Soomaaliya ayaa fududeysay in dhammaan awoodaha jira ilaa heer adag laga xakameeyo inay awood fuluneed ku yeeshaan ama ka howlgalaan Kismaayo si haddaba Kenya uga samayso koonfurta webiga Jubba dhul go'an una gaar ah ama buffer zone waxa ay dadaal gelisay in Mareykanka iyo Ingiriiska lagu qanciyo inay taageeraan qorshahaas iyada oo la adeegsanayo mashruuca la dagaalanka argagixisada hayeeshee sida ay faafisay WikiLeaks diblomaasiyiin Mareykan iyo Ingiriis ah ayaa diiday inay taageeraan qorshaha Kenya kuna qanciyaan wadamadooda iyaga oo taas bedelkeeda kula taliya madaxweyne Mwai Kibaki inuu taageero kana mid noqoto Kenya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM balse taladaas waxa ay Kenya qaadan doontaa 2 sano kadib marka qorshaheedii qayb ahaan u hurgalay si gaabis ah ayna ka maarmi weysay taageerada Mareykanka iyo Ingiriiska waxa ayna Kenya si fiican u hagaajisay xiriirkii ay la lahayd jabhadaha Raskamboni Polo Team iyo ciidan daacad u ahaa maamulkii Azaniya ee Professor Gandhi wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya oo sida ay daabacday BBC World mar noqday la taliyaha shirkadda shidaalka iyo gaaska ee Total oo Faransiis ah kana mid ah 7 shirkadood ee ugu horeeya shidaalka iyo gaaska adduunka oo dhan sida lagu daabacay warbixintaas BBC World Faransiiska iyo Norway waxa ay dhaqaale badan geliyeen hirgelintii mashruucii maamulka Azaniya ee Professor Gandhi hayeeshee Professor Gandhi waxa uu diiday jiritaanka dhammaan wararka la xiriira in Faransiiska iyo Norway ay dhaqaale ku bixiyeen dhismaha maamulkiisa Azaniya Raskamboni Polo Team iyo ciidanka maamulka Azaniya waxa ay ka dhinac dagaalamayeen ciidanka difaaca Kenya ilaa si rasmi ah Kenya u shaacisay faragelinteeda military ee Soomaaliya halkaas ayuuna ku xogeystay xiriirka danaha ku dhisan ee Ahmed Maxamed Islaam kala dhaxeeya Kenya Now the situation is settled, everything is okay, and the civilian, the local, they are very happy. hadda xaaladda waa la dejiyey aad ayayna u wanaagsan tahay dadka deegaanku aad ayay ugu faraxsan yihiin inaan u imaanno annaga iyo ciidanka difaaca Kenya iyo ciidanka qaranka Soomaaliya waxaad aragteen dadka deegaanka 4 ilaa 5 sano waxay ku jireen gacanta al-shabaab waana sababta ay dadku hadda bannaanka ugu soo baxayaan
waxaan rajaynayaa in ay filayaan inay nolol helaan aad ayaan ugu faraxsannahay xaaladduna waa deggan tahay waagaas waxa ay saraakiisha sarsare ee ciidanka difaaca Kenya u aqoonsadeen Axmed Madoobe inuu yahay saaxiibka ugu dhow uguna fiican ee xaqiijin kara danaha nabadgelyo iyo kuwa ganacsi ee Kenya caqabadda iyo balaayadii ugu weyneed ee ka hor timid qorshaha Kenya ee samaynta dhul u gaar ah oo ka tirsan jubbooyinka kaas oo sida ay Kenya ku taamayso noqon doona dhul madax bannaan oo u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya waxa ay timid horaantii 2012 markii ay xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd ee Shariif Sheekh Axmed ka gaabsatay in ay xitaa soo dhaweyso faragelinta ciidan ee Kenya ku sameynayso Soomaaliya diidmada Mareykanka iyo Ingiriiska ee damaca Kenya iyo soo dhaweyn la'aantii xukuumaddii Soomaaliya ee xilligaas waxa ay Kenya ku noqotay qaadan waxa ayna ku qasabtay inay sugto muddo gaaban inta uu isbedelayo maamulka Soomaaliya oo markaas ku jiray ololihii doorashada ee 2012 waxa kale oo rabitaanka Kenya xusuus xun ku reebay diidmada baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa ee Soomaaliya oo fadhi ku yeeshay Baydhabo Oktoobar 2011 si aqlabiyad ah u diiday is-afgaradkii badda ee dhaxmaray xukuumaddii ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid iyo xukuumaddii madaxweyne Mwai Kibaki bishii May 2009 kaas oo xeer ilaaliyaha qaranka ee Soomaaliya ku sheegay mar dambe inuu ahaa saldhigga difaaca qalfafbadeedka Soomaaliya ayna ku saxnayd xukuumaddii ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid inay saxiixdo 2 sano oo ka mid ah cimriga qorshaha samaynta Bufferson waxa ay Kenya uga dhamaatay isku day iyo dadaal u batay fashil kadib taageeridda dhismaha maamul la yiraahdo Juba taasna waxa sababay dhowr arrimood oo iskaashaday tusaale ahaan dhamaadka xilligii ku-meelgaarka ahaa ee Soomaaliya iyo dhowr dawladood oo bilaabay inay dawladda Soomaaliya si toos ah ula macaamilaan halkii ay hay'ado kale u soo mari jireen sidaas awgeed xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh oo madax xanuun aad u badan ka qaaday arrinta jubbooyinku waxa ay qayb ka noqotay dadaal asalkiisu ka yimid dawladda Itoobiya oo gudoominaysay urur goboleedka IGAD kaas oo horseeday in ergo ka socota gobolada jubbooyinka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku saxiixaan Addis Ababa heshiis ka kooban 4 qodob Agoosto 2013 heshiiskaasi waxa uu sahlay maamul ku-meelgaar ah oo jiri doona 2 sano kaas oo loo gudbi doono dawlad goboleed la yiraahdo Jubbaland heshiiskaas oo lagu qoray in dawladda federaalka Itoobiya oo ah gudoomiyaha IGAD ee xilligaas ay damaanad qaadaysa hirgelintiisu waxa uu Kenya u muujiyay inay xagga dambe uga taal siyaasadda geeska ayna dibadjoog ka tahay qolalka lagu falanqeeyo laguna gaaro go'aanada diblomaasiyadda bariga Afrika sidaas awgeed waxa ay Kenya qaadatay taladii 2 sano ka hor ay siiyeen diblomaasiyiinta reer galbeedka ee ahayd inay ka mid noqoto dalladda howlgalka AMISOM dhowr kulan oo loogu talagalay diyaarinta dhismaha maamul ku-meelgaar ah oo ay yeeshaan jubbooyinka ayaa ka dhacay Muqdisho kadibna kulan weyn ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo iyada oo wafdi heer sare ah oo ka socday dawladda Soomaaliya uu tagay Kismaayo si uu uga qayb galo shirka dib u heshiisiinta jubbooyinka xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh oo bariyahaas isu diyaarinaysay dhismaha 4 dawlad goboleed waxa ay qaaday talaabo kale oo Kenya ka caluusay la kaliyoobidda gacan ku haynta jubbooyinka waxa ayna ahayd dadaalkii ay dawladdu gelisay in ciidan ka socda AMISOM uu ciidanka KDF kala qayb qaato ilaalinta nabadgelyada jubbooyinka sidaas awgeed utub ka tirsan ciidanka AMISOM oo ka socday Sierra Leone ayaa tagay Jubbada Hoose Kenyaankuna si cad uma diidi karin balse waxa ay si fiican u fahamsanaayeen in diblomaasiyaddoodu bilow tahay saaxiibada ay ku leeyihiin AMISOMna ay yihiin kuwa kooban sidaas daraadeed waxa ay Kenya xoog saartay in ceebaha iyo gaabisyada KDF kala kulmo gudaha Soomaaliya laga qariyo dadweynaha Kenyaanka ah iyada oo si xoogan u adeegsatay telefishinada KBC Citizen iyo Nation sida ay sheegtay suxufiyadda Jiddi Gosgey oo ah gabadha diyaarisay taxanaha dhunkashadii nolosha ee Soomaaliya Let's take you to Somalia tonight, and one of the most significant events in Kenya's war to defeat the Al-Shabaab since the crossing of Kenya's defense forces into Somalia took place yesterday. And it didn't happen on the battlefield. mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dagaalka ay Kenya kula jirto Al-Shabaab kadib markii ay ciidanka Kenya ka gudbeen sohdinta Soomaaliya shalay kama dhicin goobaha dagaalka caleemasaarka golaha fulinta ee maamulka jubbooyinka oo ugu dambeyntii dhacday taasi oo ka dhigan in 2 sano ee soo socota dawladda federaalka ay ugu yeertay Bufferson xitaa ka hor inta aysan ciidanka Kenya gudaha u galin loo qorsheeyay inay noqoto Bufferson u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ujeedka adeegsiga warbaahintu waxa uu ahaa si loo dhiso niyadda ciidanka difaaca Kenya oo qaarkiis xanuunka daltabyadu ku dhacay
markii ay 2 sano ka soo maqnaayeen dalkoodii ayna dhibsadeen urka iyo kulaylka rasaasta madaxda sare ee ciidanka difaaca Kenya waxa ay kula taliyeen howlwadeenka KDF in dadweynaha ku nool meelaha ku dhow saldhigyadooda ay la saaxiibaan isla markaana u fidiyaan caawinaad cunto iyo haddii loo baahdo mid caafimaad si ciidanku ula qabsado una fahmo dhulka iyo dadka iska leh warbaahintana waxa loo wakiishay inay adduunka u sheegto shaqada ay Kenya ka hayso gudaha Soomaaliya si loo gaaro ujeedooyinka Kenya madaxweyne Xasan Sheikh oo u muuqday inuu fahmay barigaas xifaaltanka u dhaxeeya dawladaha ku jira dalada AMISOM si gaar ah Ethiopia, Uganda, Kenya iyo Burundi waxa uu safar uu ku tagay Kismaayo si gaar ah ugu mahad celiyay ciidanka Sierra Leone. This is something that is beyond the control of the Republic of Sierra Leone and beyond the control of AU and beyond the control of the Federal Republic of Somalia. But we have clearly stated that we are very much grateful for their contribution. They came to Somalia at a very difficult time. They're leaving Somalia in a much better. arrinta samaynta bufferson u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya wali farikama qodna waxaana qalqaliye damaca Kenya ee sheegashada qayb kamid ah dhulbadeedka Soomaaliya balse sida uu muujiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo booqasho loo bixiyay kedis ku tagay Dobley bishii March 2017 waxa jira culays iyo niyad jab Kenyaanka ka haysta xaqiijinta dhismaha dawlad go'doonsan oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ujeedka safarka madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu ahaa dejinta iyo ulaabqaboojinta ciidanka KDF ee jooga koonfurta Soomaaliya kaas oo sida ay sheegtay daraasadda KDF ee qanacsanaanta ciidanku in ka badan 30% qaba niyad jab iyo walwal waelewa matatizo mbaya hawa wanashabab wametuletea kule nyumbani fadlan niyadiina sare u qaada moraalkiinu ha sareeyo ogaada waxaad maalin walba iyo mar walba samaynaysaan kaliya aan la aqoonsanayn ee si dhammaystiran loo xushmaynayo haddaba Kenya 10 sano kadib uma suuro gelin hirgelinta iyo dhismaha dawlad u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waxaana u dheer dhibka ka haysta arrinta dhulbadeedka Soomaaliya Jomo Kenyatta madaxweynihii ugu horeeyay ee Kenya ayaa madax xanuun ka qaaday siyaasadda madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan haddaba sidaas suurtagal u tahay in siyaasadda Soomaaliya ee maanta ay madaxa u dejiso wiilkiisa Uhuru Kenyatta haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like sar si aan u aragno cadadda tirada daneynaysa mahadsanid